قلتك وعاقين الفردي أحمد حسين عابو ولالك وعشرة فيها إن العاون مكرفوق وقصور دويو مجاهد أحمد حسين عابي وكمدها ناليرتي وفو أدي بيدك لي لما تجير سيديد السنوات كلنا هل كان نعطي وكاس أسماء تاي ولا القصور دو لا يركشني لا يركشني لا يركشني السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كدي عاوة هبينك انتونا وهبينك استرية توقفي وهبينك مويد الصومالي لان لقد واقع هرقيسا كبعد مرقي هلق انقرار او دير لو سو قلي ايام مالتي هي بيشو سيديريا توني 1991 والعلي سو تاي halkaas oo beeraha Soomaaliland wada degansiday u dhanyihiin dhammaantood odayaashoodii intay isugu yimaadeen halkaa lagu go'aansaday in dowladdii la isku oran jiray Somali Democratic Republic isu tagay xilkii dhacay dib looga noqdo oo aynu kala noqono laba dal oo walaala ah halkanka actually muddo dheer oo dheer ayaa lagu jiray maalinba noocu doonaba ha ahaadee maalintii lixdankii la isu tagay July kowdeedii unionkii markii isticmaalkii labada gobolba ay ka xoroobeen ay midnimo sameeyeen from that day lafteeda waxa bilaabmay in wax badan oo markii hore niyad samaan Soomaaliland ay meesha u tagtay inay arkeen inaan arrinku siduu iyagu rabeen ama ay u niyad samaayeen inaanu arrinku u soconin bay arkeen laga bilaabo markaa waa maqasheen taariikhda in 1961kiiba dhalinyaro military ahaa officers ahaa inay isku dayeen inay inqilaab sameeyaan inqilaabka oo ku dhintay Allah u naxariisto uu ka mid ahaa Cabdullaahi Saciid Caabi wixii kalena la qabqabtay oo uu ka mid ahaa Cabdullaahi Kongo Xasan Kay الله يفرضنا يا رب لوجويا محمد عبد الرحمن بالله يرضاه ويبدنا أي كم ده هاي فرما أنت واركتين هلك بود أبلا ماي كبايعي تيم عده وما غشين سو كبايعي وكتري هلك قاسم باش نسلا سنة وحوتري أظن هذا يدك دارين هذا جود يرى لكن ما أنت تدري تبون كمية أي كاسو أفكارتي وحنا بلا ما يسلم ما أنت هل كان كله إن ذكي سومالي نورنجري جيب لوديسو كبعد ما كنت قالوا كبعد ماركي دولتي dhiigi cabkii siyaad barre uu hogaaminayay uu ciidamadii militariga
dalku lahaa ee ay ahayd inuu cadowga ka daafacaan oo u isticmaalay intuu diyaaradihii milatariga soo kiciyo Hargeysa iyo Burco meel kasta lagu burburiyo walaalayaal wax badan ayaynu qabsanay haddaynu Soomaaliland nahay laakiin xaqiiqadu waxa weeye wax badan inay noo dhiman yihiin toddobiyo tobanka sannadood aynu imika sheegayno in badan baynu idhahnaa war meel maydaan gaadhin laakiin xaqiiqadu waxa weeye halkaynu ka soo bilownay marka la eego wax weyn oo weyn baynu gaadhnay dhaliila ha jirin laakiin wax weyn baynu gaadhnay xaqiiqaduna waxa weeye horaynu u soconaa dib uma soconno horaynu u soconnaaye dib uma soconno mid kalena waan idiin sheegayaa taan idiin sheegaya waxay qolooyinkiinan qurbo Somaliland dadka jooga iyo dadka qurbaha jooga waa kala laba qolooyinka iyo gudaha jooga annagoo aad mooday inaanu ishaysan Soomaalidu waxay tidhaahdaa doqoni meel lagu kaftamayo ayay moodaa in lagu kala tagayo qolooyinkiina dibadda waxay moodaa inaad qolooyinka inaad tihiino ay islaan wallahi meeshii waa lagu kala yaacaya malaha runtii xaqiiqadu sidaa ma aha ee waxa weeye lagdan baa meesha ka jira waa la isdhaliilayaa waa la bartamayaa hadalku waa la isku adkaynayaa laakiin xaqiiqadu waxa weeye waxaasoo dhan haddana geesun baa lagu wada socda markaa marka meesha yaallaa waxa weeye idinku qolooyinkiinan dibad ha ku habsaamina taasiya midda laydinka baahan yahay waxa weeye in community ay idinku dibad ahaan ka samaysataan kaas marka aad samaysataan ayaa dalkiina wax u tari kartaan idinku halkanna aa wax ka qabsan kartaan laakiin haddii sheekadiinu noqoto uun garaabo yaroo la meelaha u doonata war wallahi aan idinna waxa qabsanay xaggaana aan idin waxba u taray markaan caawa idin leeyahay waxa weeye waar halkanka waxaad kaga qaybgeli kartaan idinka oo halkan horta wax ku noqda community samaysta isbuugaabiya marka idinku taa samaysaan ayaa dalkiinnii iyo dadkiinniina wax u tari kartaa marka waxaan leeyahay anuu markaasaan idinku adkaynayaa sheeko kaluun idiin gelayaana ma jirto